jawaabta kaliya ee guuldarrada waa inaad guulaysato isla markaana aad la imaato mar walbo aad guuldarraysato dadaal ka sii badan kii hore aad u bixisay. Qofka kaliya ee noloshaada isbeddelka ku samayn kara waa adiga. Adiga keligaaga ayaa awood u leh inaad wax ka beddesho noloshaada. Muhiimna ma aha waxay dadka kugu dhahaan ama ay kaa aaminsan yihiin. Riyadu kaliya waxay noqon doontaa riyo haddii aan loo beddelin hadaf iyo ujeeddo iyo hiigsi iyo himilooyin, isla markaana aan loo dejinin qorshe cad iyo ajande u gaar ah si loo xaqiijiyo hadafkaas. Si aan u guulaysano, marka hore waa inaan annaga isku kalsoonaanaa nafsad ahaan. Markaan isku kalsoonaano ayaan awoodi karnaa inaan gaarno hadaf walbo aan leenahay. Kalsoonida aad naftaada ku qabto ayaa wax walba ka muhiimsan. Haddii aadan isku kalsoonaan, waxaad ahaan doontaa qof aanan noloshiisa wax horumar ah ka gaari karin. Qofka hanka sare leh waxa uu samaystaa hadafyo u gaar ah, isla markaana uu rabo inuu xaqiijiyo. Balse qofka hamigiisa hooseeya ee aan han sare lahayn waxa uu ku mashquulaa hadafyada dadka kale iyo waxyaabaha ay haystaan. Rajadu waa inaad ka quusataa quusashada, mar walbana aad ahaataa qof aanan niyad jabin si walbo ay nolosha kuugu adkaato, duruufo adagna kuu soo wajahaan. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu quraankiisa ku leeyahay: laa taqnituu min raxmatillaah, ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, innahu huwa alghafuuru raxiim. Ha ka quusanina naxariista Alle, waxa uu Alle cafiyaa dembiyada oo dhan. Allah waa mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan. Xikmaddu waa inaad garataa waxa waajibka ah inaad samayso. Xirfadduna waa inaad garataa sidii aad u samayn lahayd waajibkaas. Guushana waa inaad samaysaa waxa waajibka kugu ah. Tusaale ahaan, waxaa xikmad ah inaad garato inay waajib tahay inaad dukato. Waxaana xirfad ah inaad barato sidii aad u dukan lahayd. Waxaana guul ah inaad fuliso waajibka oo aad raacdo amarka Allah oo aad dukataa salaada. Intii aad eedayn lahayd oo aad ka xumaan lahayd mugdiga, taas beddelkeeda daaro shumac si aad uga baxdo mugdiga. Waxaa waajib ah inaad samayso waxyaabaha aad isleedahay ma samayn kartid ama way kugu adag yihiin. Waxaana hubaal ah ugu dambayn in aad samayn karto. Guuldarrada ma ahan ilaa mid ku meel gaar ah mooye, waxayna guuldarrada abuurtaa fursadaha guusha lagu gaaro. Ma jiro qof guul gaara ilaa uu soo maro caqabado iyo dhibaatooyin iyo waddo qodxa badan leh. Qofkii caqabadahaas aan isku dhiibin una adkaysta qodxahaas, waxaa hubaal ah ugu dambayn inuu guulaysan doono. Muhiim ma aha tartiibnaanta aad ku socoto, mana kuu keenayso dhibaato haddii aad si tartiib ah u raacdo waddada guushaada. Balse waxaa muhiim ah inaadan marnaba istaagin oo aadan marnaba joojin tillaabooyinka aad u qaadayso dhanka guusha. Waxaa laga yaabaa inaad guuldarraysato haddii aad isbiimayso oo aad u dhaqaaqdo dhanka guusha, balse waxaa hubaal ah inaadan guulaysan doonin haddii aad ka baqdo isbiimaynta iyo raacidda waddooyinka adag ee guusha.